السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قوام ما توحن كدول استاغي دورا كالفردقي بارلمان كبنتلان او ماتا فرمي وكالفردقي اي ارن شان الهايين حدي او فرمقرا ورقمي سو قيامة داعية وكالفردقي اي حالي مقالة ولاغاها وقود دادين او دهين انت قراها بارلمان كحافظها ودولن هقوران سبحي واسود دولين ادان ارن شان هاي كالفردقي وادعي ديرانا ديرا مهردين مقالة ميلك السؤال مدين لشيكا كسو تاغن وسعيد عبد الله يدني دكتي waxaa la baafinayaa wiilashii fulayada ahaa ee furinta qoryaha ay kala soo carareen islaamaha marka garowe cidlada ahayd islaamaha la dul fadhiyay ayaa magaalada ka dhex baafinaya kalfadhiga waa furmay dastuurkii uu lahaa lama furi karay reer hooleyna waa furmaya dastuurku hooley uu qoray hooley dastuurka uu qoray waa furmaya qodobkaas maanta waa dul istaagaya qodobka labaad dul istaagaya waxa kamid ah ceelbarda dagaal ka dhacay waa dul istaagi doonaa sidoo kale meesha la yiraahdo baraawe olaadii ka dhacday oo horay aan kugu sheegay raxan weyn in qabiil ahaan loo dagaalamayo aysan ahayn ciidamo military iyo ciidan Jubbaland oo isku khaldamay inaysan ahayn cadaynteedan maanta idii wada ayadoo lagu hayo dagaalkii oo la yiri irir samaalow xaga dhex guuxay dad shabay duluf dhawaa madooliya ayadoo irir samaalow lagu hayo ayadana baa dul istaagi doona aan ku hormaro qodobkii koobaad meeshii la oran jiray garowe waxaa ka furmay maanta kalfadhigii baarlamaanka kalfadhigaas oo ay diidanayeen aaranjan inuu furmo oo ay ku goodiyeen haddii uu furmo inay weerari doonaan golaha baarlamaanka sidoo kale waxaa hanjabaad loo furay oo ilaa habeen hore hanjabaad iyo taleefano loo dirayay gudoomiyaha baarlamaanka oo lahaa waa ku dilaynaa haddaad kalfadhigaa fudhid haddii aad dastuurka iyo waxaa ka hadashid haddii ninka la yiraahdo waa Cabdirashiid Yuusuf Jibriil gudoomiyaha baarlamaanka wiilka ay dilayahay almiidaan waasicbi halkaas uu ka keen wariina dhaashay maahay baa laga sheegay asagoo mid u qoray mid baa wuxuu soo qoray jimcaale cambaashe haddaad kalfadhi fudhid oo haddii aad ku dastuurka fudhid oo haddii aad ku rooyay muxuu ahaa dastuur fudgishid noolaan meesha Cabdirashiid Yuusuf Jibriil waa wiilkii warsangeli Cumar Garaad Cabdalle reer Suldaan waxa uu jawaabay in dhaashan anigu maahay in dhaashan bisoo wadan toban gaari buu wataa ninka uu dhaaranaya leeyahay ku dilaynaa haddaad fudhid kalfadhigaas maanta waa furma madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane waa ka dhex khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa khudbadaas inta ugu muhiimsan oo aniga muhiimka ah waxay ahayd in uu yiri doorasho wan ma wafooda waa qabanay 3 degmaa noo hadhay waana qaban doonaa oo doorashadu inta ku ekaan mayso kana harimayna dimuqraadiyadda ilaa heer madaxweyne ayaan ku dooranaynaa dimuqraadiyadda hadalkaas oo kooban ayuu soo koobay sidoo kale waxa uu dul istaagay qadiyada gobolka Gado oo uu baaq adag ka soo jeediyay kuna yiri Gado uma baahna in la cuno qabateeyo la diiwaandaabiyay waxay u baahan tahay in loo dhibriyo sidoo kale waxa uu dul istaagay colaadda ka socota Baraawe intaba asoo ku nuuxsanaya waa kana codkii Saciid Cabdullaahi Dani Saciid Qurux ila daaw waxaa xusid mudan in degmooyinka gobolka Nugaal qaarkood gaar ahaan Garowe Bangoroyo iyo Godob Jiiraan aysan weli ka qabsoomin codayntii caqabado jira dartood waxaan ku rajo weynahay in doorashadu qabsoonto si dhaqso ah si muwaadiniinta saddexda degmo ay si dimuqraadi ah u soo doortaan golayaashooda deegaanka ayna ka harin asaagooda u guuray dimuqraadiyadda mudanayaal iyo marweyn dawladda Puntland waxay walwal ka muujinaysaa xaaladda amni iyo xasilooni darre siyaasadeed ee ka soo cusboonaatay gobolka Gado waa nasiib darro in maanta dawladda federaalka ku caburinayso dadka gobolka Gado wixii ay horay u diideen iyagoo iska indhatiraya baahida loo qabo Jubbaland in loo sameeyo Jubbaland loo sameeyo dib u heshiisiin dhammaystiran waxaana ku baaqaynaa in dib u heshiisiin ballaaran lagu dhameeyo xiisadda gobolka Gado ee aanan xabad iyo caburin iyo diyaaradaha la joojiyo aan loo adeegsan waxaan sidoo kale walaac ka muujinaynaa isku dhacyada ciidamada militariga Soomaaliya kuwa maamulka koonfur galbeed ku dhex maray Baraawe iyo Ceelbarde waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah loo joojiyo dhacdooyinkaas oo loo jeediyo awoodda ciidamadeena la dagaalanka argagixisada iyo xadgudubka dawladnimada dadka wada ina qadiyadaha gobolka Gado
inaad ka hadashid waa ku maasanta midda baraawe inaad ka hadashid iyo beesha raxan weyn ee caasimadii lagu haysto ee lagu dagaalamayo ee xasan dhiiqa kula dagaalamayana inaad ka hadashid madaxweyne waa kugu hambalyeynaya dimuqraadiyadda Puntlandna inaad sii wadid oo aadan kaga harin halka ay joogto oo golo deegaanka looga harin oo aad qof haddii aan la ku rooyo tuuga iyo qof haddii codka shacabka aan ku kalsoonayn iyo nin haddii aan la ku rooyahay raba inuu lacag kursi ku fuulo inaadan oga harin ayadana waa kugu bogaadinaya madaxweyne shacabka reer Puntland waa ku garab taagan yihiin waxay ka rabaan hanaankii shalay adiga lagu soo doortay in aadan dib ugu celin ee one man one vote kii shalay aad ku qabatay golayaasha deegaanka sidoo kale inaad madaxweyne lagu soo doortaa lagaaga fadhiya haddii inta aad qaban weydid wixii aad qabato dhan waa hal bacaad lagu lisay guddoonka baarlamaanku waxa uu madaxweynuhu u dhiibay oo maanta kalfadhigu u furmay kalfadhigu ilaa 10 bari uu furnaanayaa waxa la xisaabtamaya wasiiradii waxa diyaar ku reeyay taliyaasha ciidanka soo fariisanaya ka bacdina dastuur furida loo gudbi doonaa dastuurka waa la furi doonaa danta Puntland baa dastuurka loo furmaya dastuurku u xirnaan mayo reer hoolay dastuur ay qoreen xalaalba ma haba dastuurka foroole leeyahay la furi mayo xalaalba ma in la furo xaq weey ma kitaab quraan reer hoolay ani weydiiyay waxa foroole qoray foroole yaa garanaya shakhsi ka nacay Puntland shakhsi ka xun oo Puntland soo maamulay yaa garanaya ma jiro waxa uu qoray in la yiraahdo la furi mayo asaga ugu noolaanaya naay anu waxa qabaa soo dheer guuro dastuurka foroole qoro dhan in la guuro qabaano sababtoo xalaalba ma haba xalaalba ma waa dastuur musabbiix qoray wey musabbiix dastuur qoray wey taasaan leeyahay qodobka labaad hadduu istaagay waxa weeye Aranjan oo haddii la ku rooyahay awoodoodu biday nin la yiraahdo xildhibaan dhaashane ay baro haddii aan si kooban idin baro waa khaliisha diiriyada Puntland wey khaliisha diiriyada waa xildhibaan iska sakhiga oo haddii aan guul wada laakiin haddana guul wada aan bistoolad wadan waxa khaliisha diiriya ku leeyahay guul bistoolad wata bistoolad bal xildhibaan dhan oo qabiil matalaya oo xasaanad leh oo aan waardiye wadan oo aan bistoolad wadan meelaha iska gashaa waa galgashaa da waxa waa rifilkeede Aranjan inta waxay indheeyeen baa la yiri wariyaan dan u dakanaysanaa oo haddii aan ku rooyahay aan xagatin naga soo gaarin xagatin ilaa meel cid qoy wadata iyo nin dharbaaxi kale aadi mayaan waxa ay dhaashan ninka la yiraahdo oo dali ka agdhow bistoolad wato saddex sahan bay u direen saddex sahan baa loo diray sahan waa la soo ogaaday meeshu degan yahay inuu xataa iska staff uusan bistoolad la soo ogaaday xalay guriga agtiisa u galeen guriga agtiisa oo fariistay oo iska qudub leh oo gurigiisa furaaya baa dhacay looga soo wareegay waxay damceen inay qaataan oo gaari ku ritaan oo qol ku xirtaan oo video ka soo duubtaan video baabajay asagoo video ka soo duubtaan al-adma dhaashane ma fulay qaali ka fulay xoog la weey afku qaylo ka shubtay waa wareey waa xaafadihii oo dhan ba saaka iga sheekeynayay waxa la yiraahdaa qayladii xalayadhay waxaan isniin reer dhan ba inta loo dhacay mobilada laga guranay ee wadad ma jooga miyaayay iga dhigo fargag guriga hortiisa waxay noqotay fadalo batal bay noqotay batal si ugu farganayeen ninkaas waa qaadi waayeen inta yeeleen xoog ay ku qaadaan waa waayeen xabada waa ku rideen laakiin baydo ba ka sii qaada baydo dhagax iyo ilaahay wuxuu ku bixiyay odagii xijaar ahaa taliyihii booliska Soomaaliya ahaa oo guri u dhow degan staafkiisa baa waxay moodeen islaan weyn oo mobile laga furanayo mobile islaan laga furanayo ay moodeen waa ku soo ordooday xabadey ku rideen waa ka carareen da waxa waa rifilkeeda horta Aranjan awoodoodu waa qof miskiin ay soo ilaalsadeen oo aan toorey qof aan toorey laga soo gaari maayo waa dafayaanay abkaaga hadday shallo ku arkaan shallo wallahi billahi tallahi waxay moodayaan baan ku yiri mindi ay moodayaan waxa wataan ma arta waxa aan ciidan la wada haan jiray anaga wada naqaan goodinka ka fulaysan yihiin hadday jaamkaaga shallo ku arkaan mindi ay moodayaan ku agtaaga ka soo wareegmaya ma arkeen inaad wax wadan oo ku soo hariidaya da waxa waa rifilkeed nimanka dhaashana waa ka adagi dhaashana iyo khayshad diiriya iyo qof meelaha maskiin oo galgasha oo bila mindiya waa ka adagi laakiin
ceebtooda waxaa loo tagay xalay ayagoo ku hayay magaalada haddii aan ku rooyahay hoolka baarlamaanka laga guuro magaalada meel kasta waxaa la dhigay dhishika laga soo jeeso cabdirashiid yuusuf jiruul u dhaaranayaan hadaa fadhi waa ku dilaynaa igu imaado biyo barxadda suuqa ay keena wiilka iga hub badan oo dilayo barxadda igu imaado saaka waa la baadigoobaya jaani ciri meel ay dhigeen telefoonada ay wadada ka dhacay ma ka hadlay dastuurkii ma ka hadlay maxaa ka galay wuxuu ka hadlay ummadan qof uma afduubnaanayso ummadan reer hoolay iyo godhoba ay wataan uma afduubnaanayaan Puntland bay garow la mid tahay shacabkeeduna la mid yahay ayagana waxba qaybsanaysa reer hoolay u afduubnaan mayso bahasha dantiina qaato isaga taga meesha midda kale war qoryaha maxaa wadataa haddii dan la aadi karin qoryaha maxaa u wadataan haddaan dan la aadi karin maxaa magaalo u gaaf wareegtaa geey hadda